waxaa jira muuqaal aan ka samayn doono qaabka u furan kartid iyo sida appka u soo degsan kartid intaasna ku soo dhawaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saaxiibayaal. waxaad shaqada ugu horeysa ay qabanayso waxay tahay marka aad FBL soo gashid maadaama aad tahay qof danaynaya inuu ku soo biiro Fantasy Premier League waxaad galaysaa App Store-ka ama Play Store-ka kadibna waxaad ka raadinaysaa Official Premier League app oo Fantasy ay qayb ka tahay kadibna waad raadinaysaa kadibna waa soo degsanaysaa Official Premier League app-ka haddii aad isticmaalaysa Android iyo haddii kalaba labadaba waad heli kartaa markaa soo degsatid kadib oo aad install ahayd waxaa galaysaa appkii kadibna wuxuu ku leeyahay get started marka dhahaydna waxaad dooranaysaa kooxda aad taageertid ama kooxda aad xiiseynaysid si uu kuu aqbalo kadibna ma jeceshahay ayuu ku leeyahay inaad waxyaabaha appkan oo dhan inaad yani ku soo biirtid ha ayaa leedahay kadibna create account ayaa leedahay create account intaadan dhihin ama haddii dhinac kale aad taabatidba labadaba waxaad dooranaysaa qaybta fantasy ay ku qoran tahay kadibna I want to register ayaa leedahay qaybtan waa marka qaybta aad buuxinaysid formka magacaaga ayaad gelinaysaa oo kan ugu hore first name kadibna waxaad dooranaysaa last name ayaad gelinaysaa kadibna waxaad gelinaysaa emailkaaga require ee ku qoran waa must kadibna waxaad dooranaysaa password kadibna waxaad dooranaysaa inaad yani tahay male and female kadibna waxaad dooranaysaa taariikhda dhalashada kadibna waxaad dooranaysaa lambarkaaga markaad gelisid oo uu ku aqbalo waxaa leedahay next ayaa leedahay kadibna waxaa u gudbaysaa qaybta kale ee doorosh kooxda aad taageertid haddii waxaa soo dooratay kooxda ugu horeysa tusaale ahaan hadda halkaas Arsenal ayaa noo dooran kadibna waxaad dooranaysaa oo xogta Premier League emailkaaga ku heshid waxaa leedahay okay kadibna waxyaabahan kale aad tig saaraysaa oo la xiriira maalgeliyaasha Premier League kadibna waxaa leedahay next ayaa leedahay qaybta saddexaad ayaa u gudbaysaa oo ah inaad dhamaystirtay diiwaangelinta kadibna wuxuu ku dirayaa emailkaaga ay ku dirayaa oo aad ka soo xaqiijinaysaa koodka inaad furatay ama akoonka FBL oo akoon aad samaysatay kadibna confirm ayaa leedahay dooro shax ayaa lagu leeyahay magaca ayaan gelinaynaa waxaan ku qornaynaa waa Soomaali kadibna waxaan leenahay select name kadibna waxaan dooranaynaa dib ayaan ka muuqaal ayaan ka sameynaa laakiin hadda waxaan leenahay shaxda markii sidaas u soo muuqato waxaan ku dhufanaynaa barta auto complete ayaan ku dhufanaynaa si aan muuqaalka xiga aan uga sameyno qaabka aad marka auto complete aad ahayd iyo waxa ku xiga iyo qaabka aad shaxdaada si rasmi ah aad isbedel ugu sameyn karto sidaan ayuu marka taleefankaaga uga soo muuqanayaa oo aad appka FBL-ka u isticmaali kartaa